أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما غسل فإنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما غسل فإن الله كان غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحوكب الله بنايا آيات اللباتن إيا اللبات أو سورة النساء كمذا. وهي الله سبحانه وتعالى نوغسو ورمي أنه وليب السوق ريان دي لهاي عشر كاني بقول طبعا إيا سديدات أو كل حجرنا سورة أفراد القرآن كمذا. الله سبحانه وتعالى وحو نوغسو ورمي حقوق زوجين كهي أيو إلهي نوغسو ورمي قارهان مركاسي هوينك حقوق دودي أي مركاس رقعي كل هايين أيضا وذجستنوين نوع ما دونتا مركا إلهي سبحانه وتعالى وحو نصودا 10 كين أيدو ودن بي هدي أدون إيسان وإلهي هوينك إنا يكون بدلتان هوينك اللي بدلها إنا مهر كودي لسي أما هوين بغان هديه مهر كودي لسي إلهي هكا قادنا وده إلهي شيء هكا قادنا سيد وقادنا إسانا وده أساقو أخذ قاسوية مركاسي ظلم أويه دنب عدنا أويه سيد وقادنا إسانا وده إلهي وجكيد وقادنا إسان هدنا أيضا بعدين بعد كلا وقاري وجماعة يسوط تبينك ناقت كاسو مهرك وصغا يهوانت وأخذنا منكم هدنا إذن كقبتين ميثاقا بلنا وده إلهي غليظا وأذك وأكي إلهي سبحانه وتعالى ونقع أمريه إلهي سبحانه وتعالى ولا تنكحوها قرسنا إلهي ماذا بمعنى ما منوي ولا تنكحوها قرسنا الله الله ما من دولها قرسنا نكح آباؤكم آباؤكم أي قرسدين أو من النساء هوينك كمذا إلا لكن ما كي قد حقيقة سلف هرمري كاسوا إسكاليد هنا والذين كعفيي إنه النكاح سنة وآبادي ناقه قرسدين لقرسده كان وحو هذا الإله فاحشة فالحمو إيه ومقتا دنبي أي عرأ أيو هذا وساء وانا حماذا السبيل من سبيل حق جيتك أيو حماذا. أيضا هذا 10 كلمة هو أيضا نكسر بالله بينيو يا أيها الذين آمنوا الله يحل لكم أن ترثوا النساء كرها أيضا سوى نسول كيدا أن سوى شيئيني واتي أي هذي naagta haddii nin hadduu naaka dhinto jaahiliyadii ninkaas wiilkiisa aysan naagtaasu dhalin ayaa marada saara jiray ama waa guusa jiray ama waa meermeeri jiray markaasuu mahar ka qaada jiray madax furasho ama nimuu inuu ku daro kaleentood ayuu xoola ka qaad maharkeeda qaada jiray waxyaabahaasaa jiri jiray. horta marka ugu horeysa taas waa lagu xarimayaa oo wixii markaasi aabaada waa markaasi wixii usuul oo dhan aabaha aabiis وهكذا وي ayaa laga wadaa wixii ay guusadaan oo aqadkoodu waa ku dhaco xataa iyaga jamaacana dowrabo way ka xarimanta ka ummiko ka way waxyaabihii jaahiliyada jiray taas ayaa reebaysa marka hadda meeshaana marka waxaa laga gudagelayaa oo ilaahay nooga gudagelayaa haweenkii muharramaadka ahay oo la iska xarimay oo mahramka ahay ragga laga xarimay waxaana lagu bilaabay zawjatul ab aabaha zawjadiisa ayaa lagu bilaabay
shanigeeda ayaa aad iyo aad weyn oo markaas loo qasdaya maxay la jaahiliyada san uru soo marnay waxa weeye taas way guusan jireen zawjatul abkaas mar haddii waxa weeye ninkaas aysan asaga dhalin aabihiisna uu ka dhinto jaahiliyada way guusan jireen marka taas ayaa markaas hadda waxa weeye ayaa meeshaana loo hormarinaya marka arrintaas haday noqoto arrin qabiix oo fool xumo ah oo sharciga iyo dabciga ku xun nahyi gaar ayaa ayaga loo sameeyay waliba xayal hadda sida hadda noo imaan doonto aayadan kalentood waxa weeye dad hal aayada la isugu diraya waxa muharramaadka laakiin hadda midda hadda zawjatul abka waxa loo sameeyay markaasi aayad gooni ayaa loo sameeyay lama dhexgelin markaasi jumlatul muharramaat lama gelin oo hadda aayada kale noo imaanay waa arrintaas sida maartay ayaguna way sameey jireen aad iyo aad shay fool xumo ah weey hadda marka nikaaxa waxa laga wada waxa weeye aqadka weeye aabbaadana saan husuuru sheena usuusha waay weyn calow aabbihiis ilaa ma la nihaay marka axad oo adiga usuushaada kamida hadduu naag aqad oo ku sameeyo xalaal kuu noqon mayso wax adiga duriyadaadana xalaal u noqon mayso bixaalin maarataya xaalana markaasi waxa weeye xalaal u noqon mayso marka waxayna kamid tahay ihda almuharramaat bisihar haweenka markaasi lagu xarimay musaaharada ama sodohnimada oo afara markaas waxa baaqiya markaas hadda tan hadii la soo qaado zawjatul ibni waa ku tagi doonaahe iyo maarataya umu zawjati zawjada aad qabto naagta qabta hooyadeeda iyo bintu zawjati zawjada aad qabto naagta aad qabta bintadeeda arrintaasna hadda waxa uu tahriimku xasilaya bimujarrad al-aqd aqadka kaliis way ilaa waxa ka baxsan oo aqadka kaliis aan ku xaraam noqonaysa bintu zawjada markaas naagtaada gibirteeda oo adigu dhalin waxa xarimaya taas dukhul oo markaas hooyada la dukhulo dukhulkan hadda imaam maalik asagu wuxuu wadooyaa wuxuu leeyahay taladid xataa waa maaratay xaraamay ku noqonaysa laakiin hada jaariyatul abali aabaha adoon uu iska leeyahay taas waxa weeye ibniga ka xaraan maahan adoon aabaha leeyahay ilaa inuu adoon aabuhu markaas uu ku raaxaysto mooyaane xagga musaaharadana markaas waa noo imaanayaan walaa tankihuha guursanow ilaahi ma man duulha guursana nahyu tahriim weeye nakaxa ay guursadeen aabaa'ukum aabayowgiina oo minan nisaa'i haweenka kamida meesha waxa laga wadaa usuusha laga wadaa saa uu soo sheegay illa ma qasalafa wixii hormaray maahe aayada wixii ka horeeyay taas ida waa la iska cafiyaa laakiin aayada markay soo degtay ka bacdi wixii la sameeyo ayaa maaratay xaraam innahu ayuud ilaahi nikaaxaas oo wixii aabaadi ay guursadeen la nikaaxsado kaana wuxuu ahaaday faaxishatan falxuma ayuu ahaaday waxa weeye dambi oo qabiix weeye kaana wuxuu ahaaday faaxishatan falxuma haddana ilaahi wuxuu dhahay wa maqtan ayuu ahaaday caro macnaha sababan lilmaqti weeye caro ilaahay ayuu haddana sabab u yahay oo ashaddu lbughdi ah wasaa waana xumaadowdha ilaahay sabiilan min sabiilin xagga jidka ayuu xumaaday jid la qaadane jidka markaas uu xun weeye saasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala halkaas marka waxaa lagu reebay zawjatul ab inay maaragtay ay xaaraam tahay halkan haddana ilaahay subxaanahu watacaala qaybihii kaleentood ayuu nooga sheegaya qaybihii kale oo markaasi muxaramaadka ahay ayaa halkan haddana noo kaga sheegaya waxaa markaasi la gudagelayaa waxa nasab lagu xarimay ee muxaramaadka oo nasabka weeye ayaa la sheegayaa markaas haddana waxa weeye waxaa markaasi kuwii markaasi ralaaca lagu xarimay ayaa haddana lagu sii xijinayaa kuwii markaasi lagu xarimay musaaharada ayaa lagu xijinayaa waxaa lagu sii xijinayaa kuwii jamaca lagu xarimay afartaas weeye meeshaas marka waxa weeye markaasi waxaa 10 iyo markaasi waxa weeye waxaa ka imaahaysa 19 meelaas 20 ka imaahaysa ama 19 ka imaahaysa maxaa yeelay
haweenka inta la iska xarimo taxriim oo mu'abbada oo weligiisa jamaca la hadii laga reebo taxriim mu'abbada inta haween la xarimay 21 waaye inta hadda meeshan aayadan aan ku sheegi doono waxa ka baxsan umul mawduu'a bishubhatin wa banaatiha waxa waaye naag la wadiyay oo shubha lagu wadiyay ninku masalan naagtiisa uu qabayo ama adoontiisa uu qabayo iyo gabdhaheeda waxa kale markaas ku darsan umul mawduu'a naag la wadiyay hooyadeed oo mulk lagu wadiyay naagtan ninkan waxa weeye adoon uu qabay mulkul yamiin uu ku wadiyay mulkul yamiinti markuu ku wadiyay waxa weeye naagti markaas mulkul yamiinta uu ku wadiyay hooyadeed way ka xaraamay ka tahay naagtaas oo mawduucada gabdhaheedina xaraamay ka yihiin midda kale intood waxa weeye mulaacanada li'aan markii uu dhaco oo ninkii naagta islaaanaan li'aanka waxyaabaha ka dhalana taxriim mu'abbada ka dhalanaya intana wada waxaanu ku sheegi doonaa hadii Ilaahay yiraahdo 19 ku sheegi doonaa marka waxa weeye 20 iyo waxay noqonayaan ay 8 ku sheegi doonaa hadda aayadda tan ee uu sheegi doonaa saddexdaas markii loo wado 21 intaas ayaa markaas waxa weeye taxriim mu'abbada oo weligiis jiray haweenka la iska xarimay oo sidaas ay haweenka muharramaadka oo taxriimkoodu mu'abbadka uu yahay 21 kaas weey marka hadda waxaan ka bilaabaynaa wixii lagu xarimay nasab lagu xarimay ilaahay wuxuu subhanahu wa ta'ala xurrimad alaykum korkiina waxa laga xarimay ummahatukum hooyayaalkiina la idinka xarimay xurrimad alaykum korkiina waxa laga xarimay ummahatukum hooyayaalkiina marka hooyayaalkan وين علونا وي وهي مركا هو يالك مركا اللي waxaa soo galay jadooyinki ayay yaalki oo markaas xaq aabaha ka yimid iyo xaq hooyada ayayada aabaha dhashay tii hooyada dhashay ilaa ma la nihaayo si wad xurrimad alaykum korkiina waxa laga xarimo dhahay alle ummahatukum hooyayaalkiina iyo wabanaatukum gabdhihiina dhasheen gabdhaha markaas waxay iguna shamlinayaan banaatul awlaad gabdhaha ay sii dhaleen kuwa ay sii dhaleen waa kada way iyo wa akhawaatukum ilaahi walaalihiina oo gabdhaha oo hooyada aabba isku tihiin amaad aabba isku tihiin amaad hooyo isku tihiin intaas soo galaya saddexdaas qaybood iyo wa akhawaatukum walaalihiina oo ilaahi iyo wa ammaatukum eedayaalkiina waxa weeye aabbaadiina walaalahood weeye iyo ajdaadiina misalan ba aabbaha walaashiis waaye ama walaalihiis oo haweena iyo misalan ba awoowaha hooyada dhalay ama aabbaha dhalay maaragtay walaashiis oo iyana iyo ku ah saasoo dhahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo wa khalaatukum hawaryaalkiina akhawaat ummahatukum ay hooyayaalkiina walaashooda iyo jadooyinkiina iyo jadaatukum ama waxa weeye naag ayayada la dhalatay iyo wa khalaatukum hawaryaalkiina oo Ilaahay iyo wa banaatul akhi walaalka gabadhiisa ama gabdhihiisa wa banaatul akhi walaalka gabdhihiisa walaalka kugu hooyo aabba mid kugu hooyo gabdhihiisa markaas iyo wa banaatul ukhti waashi gabdhaheedu walaasha gabdha ay dhashay iyo waxay iyaguna sii dhalaan awlaadooda galay iyo wa banaatul ukhti walaasha gabdhaheedi intaas marka waxa weeye waa todobadii lagu xarimay nasabka todobada nasabka lagu xarimay ayaa ralaacana lagu xarimay ما النبي نقول عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب حديث بخاري مسلم يوريين رضاع وحا كو حرمنا وداي وهي نسب كو حرامه
لكن هذا الرضاعة وحبض أنت المشيء ما لكن وحال قياسنا يا أنت هذا مركز هذا الله صور شيء ونصف كل وصور شيء أيها رضاعنا كعرمة إيه أمهاتكم هو يالك نور إلهي الله تيه هو يالك أصو أرضعنكم من النوجي نوجين تانا بشروط إسكالادي وحاول يقفك مركز هو أنت مركز النوجي سوي هيديسنا غنيسو شرد وحاه هنا وصل الله بس نجاري هذا شن جير إنه نيو أيها الوضعين هذا النيو وين هدو مثلا شن لبس أنا كبدا أما النيو وين ناق أو نيوه وحبا مركز التحريم كيني ميسو ناق تي أو نيوه وحبا مارت أوكين ميسو وحا رضاع الكبير كي وحاس المنصوخ واحد جلنا ماهن ناق توحا شروط على الوضعين مركز عن هذا لنيوه أي مركز قفك كحاران غنيسو ilmuhu waa inay markaas ay ka yarihiin ama qofkaas nuugaya 2 sano waa inuu ka yariyo waa inuu hadana 5 khalca uu nuugo oo mutafarriqaad hadana oo kala tagsan oo inuu nuugo markaas ka go'o ka baadi uu ka tagay hadana ku soo noqdo ee nuuga saas maarta 5 ay ku gaarto iyo wa akhawaatukum walaalihi nawda ilaahi subhanahu wa ta'ala oo min ar-radaa'ati nuugmada idinku walaal ah gabar waxa weey markaas naas kula nuugtay iyo wa akhawaatukum walaalihina oo min ar-radaa'ati nuugmada idinku walaal ah waxa la haleeshinaya gabdhahoodii xataa waa waxay markaasi ay sii nuujiyeen iyo amaadka iyo khaaraadka iyo banaatul akhi banaatul ukhti sida hadda masalan baan soo marayna laga qiyaasanaya hadana uu dha ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo wa ummahaatu nisaa'ikum hada intana waxaan ka galeynaa qaybta markaasi musaaharada lagu xarimay nasabki iyo maarataya radaacadi waa ka soo baxnay waxaan galeynaa afartaasay ka kooban tahay aayadaanu qaybta markaasi lagu xarimay xagga musaaharada iyo wa ummahaatu nisaa'ikum oo ilaahay haweenkiina hooyayaalkooda naagta markaasi aad qabto hooyadii kale sii dhashay tii saas weey iyo wa ummahaatu nisaa'ikum haweenkiina hooyayaalkooda iyo wa rabaa'ibukum rabiibooyinkiina kuwa aad korinaysaan weey waa bintu zawjati min ghayrihi waay naagtiisa gabaray dhashay oo san isagu dhalin rabiiba leeyahay hada rabiiba midda guriga lagu korshaa leeyahay hada shardi ma ahan guriga in lagu korshee gabadhaas waxa weey haweentaasu gabadha ay dhasho oo nin kale u soo dhasho ayaa kulli isku mid waaye هذا ربيبة واحد لوجا عبرة ليري واحد لوجا عبرة يا ليري جبر واحد ليري سيدا بضنبا هو هواية ذي كوكرتا وهواية كما هرتو هو حيسا بضنتا يدي هواية حتى نك يجورس إنا إسكاجرت هذا اللي لما يجي مركز مدل كوري اللي لما يجي أو نكو مركز ناكتان قبل كوريناي يو ربائبكم أول إلهي ربيبين كينت كوات كورين إسان إلهي الله تي كواسو دخلتم الدخوشين الله تي هايالكاسو دخلتم بهن الدخوشين إلهي ماشي أنا دوام الربيبات مركز حرام نغني سورنا وصومرنا ومركز هايدل للدخوله هدي وحاوية ناكتو ونكاسدو مركز أسقون جماعين واسكفروا قبرتين وأبنانت iyo warhabaa'ibukum ilaahay habiibooyinkiina allah tii kuwaaso fi hujurikum ilaahay subhanahu wa ta'ala wurihi qolalkiina ahaaday fi hujurikum qolalyaalkiina ahaaday sifa muwaafiqa lil ghalib wa isaan ruushayna waa sifa sida ghalibka isoo mafhuum male oo hada inay guriga ku barbaarto shard ma ahan waxa laga wadaa bintu zawjati min ghayrihi la waay allah tii ربائبتا سو في حجوركم قراليالكين أحادوا الإله وتقولوا أتكوا إيسان من نسائكم هوينكين كأحادوا الإله الله تي هوينكا سو دخلتوا بينا الدخوشين من نسائكم هوينكين كأحادوا الإله الله تي هوينكا سو دخلتوا بينا الدخوشين مرة دي قبل هبرتين للدخول ساسي حرام كنا قنيسا إلهي هدنا هنا فإن لم تكونوا هدئيدا أهانين دخلتم بهن كوى الدخولي وهو يالك دادين دخولنا فإن لم تكونوا هدئيدا أهانين دخلتم بهن كوى الدخولي واتقي فلا جناح الدنب عليه فركينا معنا الإلهي في نكاح بناتين ويقبوذين دقوستان لكن وإذا فارقتموهن ما يشكو جرتيدنا وابركا فارغدان
مركاسي هبرتيو الله قبو أسوأ دخول قبل مجبوس كراي وعقد له مقول كراي سويت عقد له مقول مي وحاب الديره مركاسي لا بد يصير على تال الديره لا بد يصير شمين باب أولى هيك كسيتها فإن لم تكونوا هذين عانين دخلتم بهن كود دخولي فلا جناح الذنب عليه بركينا ما نود إلهي إيه وحلائل أبنائكم نود إلهي ويلشين هوين كوضة الذين ويلشاسوا من أصلابكم نبريالكين كهذي ويل كأد الشيء أما ويلش أد الشيء هوين كأي قبان أيضا أساس وين مساهرة الوحرمي هذين وما أد الشال هوا قف أدوك ويل يلا تقوم جرى مركز سيدي زيد وكلانتون يو أن تجمع إلهي وحوله سبحانه وتعالى وحلائل أبنائكم ويلشين هوين كوضة الذين ويلشاسوا من أصلابكم نبركين كأذو نبركين كيمدي كل هذا مركز إيغنا الوحرم جمع واكن إيا وأن تجمعوا إن تكون مسان أيالا إذن كحرموا الإلهي بين الأختين لبو وراء وأن تجمعوا إن تكون مسان أيالا إذن كحرموا الإلهي سبحانه وتعالى بين الأختين لبو وراء والنصب وراء لكوه أمر هذا نجمع وراء لكوه النكاح سوكينتين سنود مركز وحي هليشيسي جمع أو بين الأختين وهي هليشيسي سنود إن لكل ميوه ناكت لقبو إيه دليل ناكت وقبو إيه دليل أسلوب قرسد أما ناكت وقبو إيه هبريرتين أما آيات أسلوب قرسد لكن مدى يبقى نكاح إيه إنه قولوا قرسد على الانفراد وهو بنانت وناكت عدوفر وعاشد وقرسكرا ناكت عدوفر هبريرتين وقرسكرا naagtan haddoo furo eedadeed waa guursan kariyaa waxa la diidayo waxa weeye in aqad la isugu keeno waayahay hadduu laakiin hadda labadooda oo milki doonnimo ay ku yimaadaan waxa weeye markaasi mid oo markaasi oo hadduu maaragtay inuu milkiyo macan markaasi inuu addoon wada dhigto oo markaasi mid oo wadiyo markaas hadduu addoon ka dhigta laakiin waxa weeye midna uusan ka wadinayn waa banaanta laakiin hadduu addoon ka dhigto ee markaasi mid oo wadinayo ma banaana laakiin hadda baabkaas hadda addoonnimada ma jira hadda iyo waan tajmacuu inaad kulmisaan oo ilaahay bayna al-ukhtayn laba walaala ah هذا إلهي ياكو علمي لكن علماء وحي حكمة ومركز لبا وراء النكاح ليسوقي لو حرمي وحا مركز كمدا قيرة لديدة هالير ناغا وحاوي مركز waa قيرة بدنيهين مصير باجرة قيرة مركز أيام أحمر يسالي دي قيرة وحي كينيسا لبدون ناغوض إنا إسنعان وإسقويان ويعل إسو نغضانا إماهيس وإنكاس يكون دقالان ayagoo asla dhashaataani waa ku dagaalaya maadaama meesha laga rabay silatul arham laga rabay qaraabada in la xiriisha la rabay hada dadka qaraabanimada xiriirinteeda waajibka ay heeday ayaa meesha ka baxaysa oo waxa weeye qiiradaas ayaa u diidaysa hadii maartay gabadh iyo habaryarteed nin ay isugu tagaan meesha habarniyarnimada iyo wixii jiri maayaan ayaduna gabadh u aqoonsan meesha balaaya ka dhacaysa waxyaabahaas iyo maartay hadda ay culimadu sheegan oo ilaa wax kasta hadii la xarimo xigma jirta waxaan xigmadooda la ogaa karno taabudiyana way jiraan laakiin hadda tan xigmadeedu waa sidaas weey maadaama hadii misalan hadda tan la furo mid kale la guursan karaayo nikaax ay isku jiraan ilaa naagu hadii la isla qabo colay isku yihiin oo naagta iyo luradeeda ayaa la yiraahdaa saasa markaas meesha ku jirta علم وحيابا كلا sheego xagga maartay hadda aqoonta casriga way jiraan oo dhacaya markaasi waxaaba sabab laga yaabaa in loo xarimay shahwada markaasi waxa weeye isu dhow oo isaleeleysa maartay in meesha ay tahayo in cudurro iyo waxyaabo kale ay ka imaan karayaan laakiin hadda sida raajixa sida hore waay illa laakiin ma ki qad salafa hormaru dhahay jaahiliyadi oo dadkan hadda la soo sheegay isku guusan jireen dambi korkiina maanu alla leeyahay subhanahu wa ta'ala illa ma qasalafa way hormaray mooyaan in allah alla wuxuu law ilaahi wuxuu in allah alla kaana wuxuu aad ghafuur alayhi dhaaf illa ma qasalafa ilaahi subhanahu wa ta'ala markaasuu ilaahi
إن الله الله كان وحو هذا غفورا ليضاف وحي هذا كور إذن كدعي قبل النهي واي انت النهي كان أوصل إيمان مرة دي آيات سودتك بعد قفك هذا انت سوحك بدله قف مركا سوى هو يدب وقصونه ونيا إن الله كان وحو هذا الإلهي غفورا ليضاف رحيما عليه حريصا يوهذا إلهي رده سواء إذن كان حريصا يا والمحصنات marka hadda waxa weeye tii kale intood oo hadda noo dhinaaday dawaatul aswaaj min an-nisaa ayagana waxa la xarimay naagaha ragga qaba iyagoo rag ay qabaan oo naagta nin leedahay in la guursado xaraam weyn nikaasuna ma ansaxay waana xaraam ayaga markaas waxa lagu dari doonaa muharramaadka lagu dari doonaa laakiin ayagu waxay ku qeydan yihiin inta waxa weeye ninkaas ay qabaan ayay ku qeydan yihiin sida hadda jamcuba markaas inta labadaas midaas gabadhaas la qabo ay ku qeydneedo walaasheeda hadii la furay la guursan karo tanna waxa weeye idana intay ninka qabto oo nin leedahay ayay xaraan tahay in la guursado oo qabla mufaaraqati azwaajihina in markaas la guursado ama xur ha noqdaan ma aysan ahaanina marka hadda casharkeena damaansa ku qaadanayna hadda casharkeena intaas uu ku ogyahay Allah subhanahu wa ta'ala alam wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله